السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. مرلبات هدان سكسو نقوني هدانا إن شاء الله another video. فيديوغان وحساسي واي قبر والله يا إلو ذاكتي يان ربنا إنان متقانا شيكا أيضا هيستا إن شاء الله إني لو ذاقو gabadhaana waxay tiri nin ayaan isguursanay ninkaasna markaan isguursanayn waxay tiri ninkaan markaan isguursanayn waa nin wuxuu ahaa bay tiri homeless oo waxba haysanay tiri oo sharci laane waxay tiri ninkaan markaan isbaranay ninkii markaan isbaranay bay tiri ninka waan isguursanay tiri asaga oo sharci lahayn ayadana gabar yar ayay ahayd ninkii markay isguursadeen ninkii wuxuu bilaabay gabadhii markay ilmo kabal u dhashay 2 cunug meelahaas markay dhashay inuu caayo inuu aflagaadeeyo inuu wuxuu doono ku sameeyo inuu ku sameeyo marka uu qaatay sharcigiisina wuu helay adiga waxay u dhashay ilmo 6 cunug oo kale sharcigana wuu helay sharciga markuu helay marka wuxuu isku dayay totally inuu ayada dhanba baabiyabo sida uu caynayay aflagaadada waxaan ku leeyahay waxay tahay yaani waxa la sida uu sheegay uu accept gareynaysay gabadhii waxa ku dhacday maskaxdii ayaa waxay ka gaartay damage in uu wuxuu asaga ku sheegay in ay mataqaanaa wixii u maleysay wax yes that wuxuu sheegay oo dhanba runba way accept gareysay waxyaabaha uu ku sheegay in ay tahay gabadhaasi maskaxdeeda waa eber isbitaal bay gashay dadka meesha dadka uma taqaanaa maskaxda laga galay ama isbitaalka maskaxda laga galay ayaa la siixiyay waa isla hadashay waxa waaye jirada waxa kugu ridaayana haddii aad heli weysid dhibaatadaas oo kale markaad aad heshid oo ninkii aad guursatay asaga oo shalay banaankaas taagnaa oo sharci la-aan aad sharci u samaysay meeshii la rabi lahaa gabadhaas inuu kor u qaado oo waxaan ku leeyahay uu cirki ay dhulka intuu ka qaado oo gabadhaas jecel u qaban lahaa oo waxaan ku leeyahay gabadhaasayta yacni lifekiisa sidaas uu mataqaana ugu hagaajisay oo alla u soo diray oo xaaskiisa oo masaakiinta oo ilmahaas u dhashay intuu mataqaana cirki dhulka intuu ka qaado oo waxaan ku dhahay xishmeen lahaa wuxuu ku daray markuu dantiisa helay mar alla markuu dantiisa helay buu siduu doono kaba ilaa ee gabadhii waalatay oo meesha dadka waalwaalan la geliyay siduu ugu waday caytan siduu adi u bahdilayay intaas oo lacag waa nin lacag haysta waay oo track driverna waay nolosha ee ku nooshan you cannot imagine $1 ma siyaa lagu leeyahay marka nimanka sidaasoo kale opportunityyaasha oo kugu guursanayaan only opportunity mar alla markay dantooda gaaraana aad arkaysid qofkii dhogortiisa siduu ahaa yacni qofka siduu ahaa aad arkaysid way nagu badatay gabdhihii Soomaaliyeed aad bay u balanbaleen way balanbaleen gabdhihii aad baan u balanbalnay ninka marka koowdiba heerka hadduu kula gaaro marka uu koowdiba uu kugu bilaabayo caytanta waa in aad tiraahdeed stop ima cayn kartid daqalkeygana ma gaari kartid mana kaa aboodi adigoo oon shalay kaa soo qaaday banaanka aniga ayaana heerkan ku gaarsiiyey markuu uu ku caynaya ma dhahdidoo aniga ayaa heerkan ku gaarsiiyey adiga aad taagan tahay cayna kaama mudni ma iska celisid why are you keeping in all until aad noloshaadi lose garaysay maxaad u keep garaynay midda kaloo kaaga yaabe how ninka aad you keep od u dhalaysaa every year ninka sidaa kugu sameynaya maxaa kugu qasba inaad every year cunug ugu dhashid cunuga ugu horeeyba ninka haddaad aragtid inuu soo kiciiba red flagba ninku caynaya haddaad aragtid reerkiina caynaya hooyada caynaya aabbaha caynaya
ciddad ka soo jeeda ku caynaya adiga ku caynaya waxaati iyo waxaad jirta maba jirta ku dhahay until aad waalatay lagu geeyey meesha dadka waalwaalan. Yeah, why are you keeping all that? Why are you continue with that? Why are you ways? Stop it. I don't deserve that. adiga waxaad ahayd ninkii shalay banaanka joogay, banaanka taagnaayo homelesska intaan soo qabteen u soo qabeeyaan sharci u sameeyay guri oo sharciga nolosha aad ku noosha anaa kuu sameeyay waryaa. intaas markaad tirahdo hal mar intaas aad iska celisid waxaa dhici karta dib inuu kuula hadlin. laakiin gabdho waxaa jiraan maskiina, gabdho waxaa jiraan ninkaan iska celin karin, gabdho waxaa jiraan afkooda aan ka goosin karin, ninkaan cadkooda ka goosin karin jira. way nagu badatay gabdhowtan, way nagu badatay iyo nimanka laga keenay Afrika. koowdi wuxuu ku leeyahay ninka fishkeyga yaa tahay habeenkii ma saxan kari ay xalimaan cunto maan cunin la'aanta ma noolaan kariyay adina wuu ku waalayaa. every year sad ugu noqonaysa halkaasaan ku dhaw marba cunug kugu soo raraa u dhalaysa dana noqonaysa mid kale lagu soo raraa dana waa u noqonay mid kale lagu soo raraa alla markaad America keentid oo wadanka aad keentid ama Ingiriiska joog ama joog Yurub ama joogan ku dhakanad yaani America joog aad keentid aan ku leeyahay. yaa labada bari ugu hore umbu ama saaw masaakan iska dhigaya maalinta wadanka la qabsado sharcigiisa ugu horan uu saa u apply garee ninkii ku dhahay fishkeyga ta xalimaan saxanin xali cunto maan cunin anada waxa waaba nin kala oo waliga arkin bawaaga. qasakan waa inay haya gabar kale idan nin saas idan u keentay mar alla markuu sharciga waxaan ku dhahay uu saa u qaatay ninkii keentay maba ahaba. sidee baan ugu baxnaa sheekadaani way badatay, gabdhihii way balaan gabdhihii way waasheen, kaniye bay qaataan isbitaalada dadka waala intaasoo gabaroo Soomaaliya ku jirta markii la weydiin nin baa geliya lagu leeyahay. why are you accepted? ninka markuu cunug ugu horeysaba uu ka dhalo hadduu kugu bilaabo ama nolosha ugu horeysaba uu caaytan kugu bilaabo sidee baad u accept garaysay? don't accept it. hana uu dhalin cunug labaad ha u dhalin. stop it. iska celi afkan ilaahay waa ku siiyey ha kib garaynin. iska celi baawar ayaad ku leedahay halkan ma iska celisid ninkaasayto. why aad ugu ogolaatay inuu maskaxda adiga ka waalo ilmahaadii uu ku rido hooyo la'aan? sidee baad ugu ogolaatay? ma rabo in aan idinku dheereeyo fiidiyoogo badan ayaan kasoo diyaarinayaa. nimanka Afrika laga keenaya, nimanka aboojinitiyaasta nimanka markay dantooda gaaraan yaa gabar lagu soo mataqaana lagu ciidan waxaan ku dhahay fiirsanayeen oo waxaan ku dhahay wax la soo baraayay oo waxaan ku leeyahay jawigii dhan hooyo iyo aabihi iyo walaalahay intay galiyeen aan ku leeyahay mar alla markay rabtay inay wax u tartiin bay Afrika intay ka soo qaaday keenay kii halkaas ugu fiirsanay maskaxda ugu fiirsanayaan ku leeyahay wax ay taba iyo ta inay tahay mala garanaayo. yaa ba inay ta mala garanaayo. markaas wuxuu leeyahay na lacagta diris maxay tahay 200 hooyada u dira haday xataa wuxuu leeyahay waa ugu diray hooyada maxay tahay kaliya mi aad hooyada ku dhashay adig kaliya mi aad tahay adig kaliya mi aad tahay yaani wuxuu rabaa adoo shalay asagoo aad keentay rabaa inuu control u rabaa. sidee baad ugu ogolaatay naftaada taas? sidee baad ugu ogolaatay nin inuu adiga shalay adiga aad keentay inuu ku waalo maskaxda ka waalo? sidee marka gabdhahan sida loogu bixi lahaa sheekadaas waan soo wadaa. sida loogu bixi lahaana waa topic kala waa. sidan waa in aan iska wacgelina sheekada way badatay gabdhihii most intaas oo gabdhoodan kula intaas oo dhibaato ku dhacday waxa yeelan inay Afrika ka nin homeless ahayo ay soo xareysatay mar alla markay dhiilayeen thank you waad mahadsan tahayna abaalkoodii la siiyay. marka waxaan rabaa channel-kan waxyaabo badan ayaan ku soo wadaa. waxaan rabaa subscribe inaad igu sameeysiin, waxaan rabaa share inaad ii sameeysiin, waxaan rabaa like inaad igu dhufatiin, like ha iga iloobiina oo subscribe ka iga iloobiina sidoo hadalkayga meel dheer u gaaro. gabdho badan oo dhibaataysan sidii ay dhibka ugu baxaan because haddaan saan ku sii wadno waxaaba la weyn doonaa gabar dambe oo Soomaali oo caadi oo ban socotaa la weyn doonaa because dhibaatadii way badatay. gabdhihii waxaan ku leeyahay waa la wada waale waxa waalana waa inay banaanka soo qaadiyaa waalooyo. marka waxaa idin leeyahay barnaamijka intaas ayuu ku egyahay qaybo badan ayaan soo wadaa
waxaan ku leeyahay subscribe-ka ka iloobin. waxaan idinka tegay khayr iyo baraka ayaan idinka tegay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.